ay ka dhamaadeen ama ay dhamaad ku dhow yihiin qaar badan oo muhiim ah. Trump wuxuu wax diidaba ugu dambeyn waa ay ka soo baxsatay hadda su'aal ay wariyaashu weydiiyeen ayuu Trump maanta banaanka ku keenay culayska Mareykanka haysto. Waxaan ku hayaa warbixin cajiib ah. Trump oo ka carooday su'aal la weydiiyay oo ku saabsanayd in Ukraine uu gantaalo siiyo. qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heynayana waxaa ka mid ah Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa mar kale si daran u garaacay dowladda uu taageero Sacuudiga ee fadhigeedu yahay Cadan, iyadoo sidoo kale ay beegsadeen saldhig military oo ay dowladda Sacuudiga u leedahay. waxaan ku hayaa faahfaahin iyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda Sacuudiga, Xuutiga iyo dowladda Yemen ee Sacuudiga uu taageero. qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku heynayana waxaa ka mid ah Uganda ayaa la ansixiyay in ciidamo ay u dirto Gaza. waa cajiib, waa dowlad ku taala geeska Afrika oo ciidamaan u diraya Gaza leh. wiilka Yoweri Museveni uu dhalay ee generaalka ciidamada dalkaas hogaamiyo waxaa la leeyahay dalka Uganda wuxuu u soo jiidayaa dagaal ka fog iyo dhibaato aysan shaqo ku lahayn dalkan iska faqriga iska Afrikaanka meesha Soomaaliya u mooda. waxaan idin hayaa warbixintii ugu dambeysay ciidanka Uganda ay u diraysa Gaza. qodobka ugu dambeeyana waxaynu ku eegi doonaa Trump ayaa saxiixay sharci lagu mamnuucayo caruurta Mareykanka ku dhalanaysa ee waalidkood aysan dhalasho Mareykan haysanin. sharcigan oo muddo jiray ayuu Trump sheegay in uu Mareykanka ku yahay halis. maxay tahay sababta? qodobada iyo kuwa kale ayaan idinku hayaa. Ali halkan waa Kow Somali Media. madaxweyne Donald Trump ayaa qiray in Mareykanka uu ka sii dhamaaday gantaalada Patriot, nidaamyada difaaca THAAD iyo kuwa kale. waxa uu Trump sheegay in Mareykanku uu hub zaa'ida bixiyay. warbaahintu waa imtixaan. Trump oo baryahan su'aalo nafta loogu keenay ku saabsan in gantaaladii uu ka dhamaaday warbixintii ay qoreen warbaahinta Mareykanka, New York Times, Washington Post iyo kuwa la mid ah ayaa uu diiday. wuxuu yiri isbuucan horta laba hadal. mar wuu diiday, wuxuu dhahay hubka nagama dhamaan, gantaalo badan haysanaa oo Iiraan hubka nagama dhamaynin. marna wuxuu yiri ciddii sirtaan sheegtay waa ciqaabayna. wixii oo dhanba hadda ugu daran. hadda wariyaasha waxay weydiiyeen, waxaa lagu yiri Ukraine ma siinaysaan gantaalada ridada dheer leh? Patriot bay u baahan yihiin. Patriot nidaamyada difaaci ma siinaysaan baa leh. Trump uu xanaaq wuxuu yiri Biden baa horay gantaalo badan u sii buray, qaar badan buu bixiyay buu dhahay. waa markuu madaxweynaha Joe Biden ahaa, waa madaxweynihii isaga ka horreeyay. 300 oo bilyan ayuu bixiyay buu dhahay. waa khasaaro weyn buu dhahay. hadda ayaga hub ay u baahan yihiin, anagana waa u baahanahay. gantaalo u baahan taaganahay Trump. macnaheedu waxa waa anaga laftigeenu naga dhamaaday. waa we also need anaga xitaa waa u baahan u dhahay. baala xilliga wax la siinayo waa laga gudbay. hadda qaar kale hadda soo wadnaa kula kuwa kale hadda sameynayna. macnaheedu waxa waa Ukraine waxay intay aruursatay hadda nooma soo celinayso. ninkii Joe Biden ahaana 300 oo bilyan ayuu ku bixiyay Ukraine oo huba. Trump wuxuu leeyahay markii yaa mar kale khasaare la gaarsiinaya ila daawo Donald Trump arinta diiday. On Ukraine, President Zelensky says his country desperately needs long-range missiles or those Patriot missile batteries. Is that something that you're considering? Well, I mean, we want missiles too. You know, when Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition. You know, when I left, it was full, and he gave a lot of it away. Now we're rebuilding it, and we're using munitions that are very powerful, very good, but we wouldn't have been using them. We could have used something else. wuxuu leeyahay macnaha marka aniga baxayay ilaan markii hore isaga madaxweyne noqdo Obama asaa bedelay kadib Joe Biden aamad. wuxuu leeyahay markaan Joe Biden xilka ku wareejinay qasnadaheena waa buuxeen kulaha. Joe Biden wixiisu u bixinay hadda wixii eber way. we need to rebuild. inaan dib u dhisnaa u baahanahay buu dhahay. macnaha anaga wada khasaaro dhex fadhino oo Joe Biden dhibaato noo geystay leeyahay Trump. we are rebuilding now. hadda dib ayaan u dhisaynaa. we used all of them. waan isticmaalnay buu leeyahay. inaan waxaas oo dhan isticmaalnay ma ahayn. macnaha dagaalka Iiraan Mareykanka khasaaro ay adag tahay sanadyo badan inuu ka kabto ayuu gaarsiiyay baa leeyahay. waxay islaayeen sida Venezuela oo kale laba gantaalo ku dhufanaysaane waxa waay nimanka waa isdhiibi doonaan sida madaxweynihii Venezuela haddii hogaamiyaasha laga beegsaday. laakiin Iiraan dagaal yaab leh la soo baxday. waa yahay saaxiibada qiimiga leh waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka. waxaynu ku eegaynaa Xuutiyiinta dalka Yemen oo beegsaday saldhigyo military oo ay lahaayeen Sacuudiga oo ku yaalay gudaha dalka Yemen. sidoo kale waxa ay Xuutiyiintu beegsadeen xarumo military oo ay leedahay dowladda dalka Yemen oo ay taageerto Sacuudiga. xarumaha ay beegsadeen haddaba waxaynu eegi doonaa weeraradii ugu dambeeyay Xuutiga 24 saac ugu dambeeyay ay ku qaadeen gudaha dalka Yemen iyo guud ahaan xarumaha Sacuudiga. militariga Sacuudiga ayaa sheegay in weerar ay Xuutiyiintu Yemen ku qaadeen gobolka Najran ee koonfurta Sacuudiga
ay ku dhaawaceen 11 qof oo rayid ah oo uu ku jiro ilmo 4 jir ah. dadka dhaawacmay waxaa ku jiray muwaadin Sacuudi ah, Yemeniyiin, Masaari iyo Bakistaaniyiin. weerarka ayaa dhacay Khamiistii 6 Agoosto waxaana faahfaahinta cusub la shaaciyay maanta oo 7 Agoosta sanadka 2026. Sacuudigu wuxuu sheegay in Xuutiyiintu adeegsadeen weeraro ka yimid dhinaca Yemen, wuxuuna ku eedeeyay inay si ula kac ah khatar u geliyeen dadka rayidka ah. Sacuudiyiintu waxa ay sheegeen inay aarsan doonaan weerarada Xuutiyiintu ay ku qaadayaan gudaha dalka Sacuudiga. sidoo kale Xuutiga ayaa iyaguna sidoo kale beegsaday gudaha dalka Yemen, gaar ahaan dhinaca dowladda fadhigeedu yahay Cadan. haddaba sidee wax u dhaceen? isla waqtiga ay weerarayeen Sacuudiga, Xuutiyiintu waxay sidoo kale fuliyeen weeraro waaweyn oo ka dhacay Marib iyo Hadramaut, halkaas oo ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Yemen lagu dilay, in ka badan 50 kalena lagu dhaawacay. Xuutiyiintu waxay sheegeen in weeraradaasi jawaab u ahaayeen dhaqdhaqaaqyo military oo ka dhana xoogagooda oo ay isqaadeen Sacuudiga iyo dowladda fadhigeedu yahay Cadan. tani waa koror weyn oo cusub oo calaadeed, maadaama weeraro waaweyn toosa Xuutiyiinta iyo Sacuudiga ay isweedaarsanayaan. waxa ay tani keeni kartaa in dib loogu noqdo dagaalkii xoogganaa ee horay Sacuudiga iyo xulafadiisa ugu qaadeen Xuutiyiinta, halkaas oo ay Xuutiyiintuna si adag u dagaalameen sanadkii 2022. waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka markaynu meesha ugu gudubno xiisadda Sacuudiga iyo Xuutiga waxay walwal mar kale gelinaysaa guud ahaan dunida, gaar ahaan gobolka oo hadda la ciirciiraya colaadda Mareykanka, Iiraan, Israa'iil, Lubnaan iyo xaaladda Gaza. dhaqaalaha gobolka Bariga Dhexe ayaa lagu waramayaa inuu hoos u sii socdo. waxay khubarada militariga iyo kuwa dhaqaalaha dhammaan isku raacsan yihiin xiisadda Xuutiga iyo Sacuudiga haddii aanan la qaboojinin inay keeni karto in qiimaha shidaalka iyo guud ahaan badeecada dunida inay heerkii ugu sarreysay uguna qaalisanayd ay gaari karayso. waayahay qodobka xiga barnaamijka ayaynu toos u gelaynaa. Uganda, dowladda Uganda waxa ay qaaday tallaabo yaab leh. waxa la ansixiyay in ciidamo loo diro gudaha Gaza. hadda waa dal Afrikaan geeska Afrika ku yaala oo fakhiira ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka mid noqonayaa ciidamada Gaza loo diray. kaliya intaa ma ahane waaba la ansixiyaba. sidee wax u dhaceen marka? baarlamaanka dalka Uganda ayaa ogolaaday in ciidamo Ugandais ah lagu biiriyo qorshaha International Stabilization Force ee Gaza, ciidamada dejinta Gaza loo yaqaano. Associated Press waxa ay soo taminaysaa ama sheegtay in ciidanka caalamiga ah ee la qorsheeyay uu gaarayo ilaa 2,000 oo askari, inkastoo ciidankaasi weli si buuxda dhulka loogu howlgelin. dalalka kale oo horey loogu sheegay qorshahan inay ku jiraan waxaa ka mid ah Morocco, Kazakhstan, Kosovo iyo Albania. Morocco waa la ogaaba Israa'iil saaxiib ay weligeed la ahayd, Imaaraadka Israa'iil saaxiib ay la ahayd. laakiin Uganda sanadiyadii u dambeeyay wiilkii Yoweri Museveni waxa uu isku dayay inuu aad ugu dhawaado Netanyahu, ilaa iyo sida aan barnaamijyada hore ku sheegnayba taalo looga dhisay Yoonaan ninka la dhahay oo la dhashay Netanyahu walaalkiis ka weyn oo 70-meeyadii lagu dilay Uganda. xilligaas oo howlgal military uu hogaaminayay Itabe airportkii hore Uganda ayaa lagu dilay. isla meeshii hadda taalo uga dhisay. dagaalka Gaza intuu socday, dowladda Uganda waxay toos ula jirtay Israa'iil xilli dunida oo dhan Israa'iil ay mucaaradaysay ama ay ku cambaareysay waxa loogu yaray xasuuqi ka dhacay Gaza. marka maxaa keeni kara inay isku xirmaan Uganda iyo Israa'iil? sabab kale ma jirto. Uganda Israa'iil waxay u aragtaa inay tahay nidaam ka caawin kara reer galbeedka iyo Mareykanka iyo Yurub inay taageero ka hesho, laakiin Israa'iil wax dana ma ku qabtaa Uganda. Israa'iil waxa leeyahay marka loo eego Uganda iyo dalalka kale Afrikaanka, Israa'iil Uganda waxay ka doorbidaysaa ama ay ka aaminaysaa Ethiopia ka doorbidaysaa in Ethiopia yuhuuda jirto aad bay isu dhex galaan strategically xitaa bariga dhexe iyo Bab Mandab iyo marka la fiiriyo Uganda iyo Ethiopia waxa u baahi badan baa la leeyahay. Ethiopia ciidamada ugu badan ee Afrikaanka ee ka dagaalama Israa'iil ama ciidamada Israa'iil ka garab dagaalama waa Ethiopian. wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil dhowr jeer buu ku noqnoqday Ethiopia, halka kan Israa'iilna uu ku noqnoqday Ethiopiana uu ku noqnoqday Israa'iil. macnaha labada wasiir arrimaha dibadeed aad bay isku noqnoqdeen. heer waxa la gaaray madaxda Israa'iil iyo kuwa Ethiopia ay isdhaafsadaan, macnaha isu yimaadaan heshiisyo waaweyn baa ka dhaxeeya baa la leeyahay. marka Uganda iyada unbaa meesha isku soo riixaysa maahane
Israel wax danayna intaasoo tallaabo u qaaday wiilka Yoweri Museveni wiilkiisa hal mar cid xitaa dhahday Museveni cunugalo hal mar oo Israel dhahday xitaa maaragtay waa uga mahad celinayna magaciisa ay sheegeen macnaha iyagoo waliba si gaar ah u tilmaamay ma jirtaa la leeyahay waayahay saaxiibada qiimiga leh qodobka meesha ayaan uga gudbaynaa qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaynu ku soo afjaraynaa madaxweyne Donald Trump waxa uu siixay mid kamid ah sharciyadii iyo go'aamadii ugu cuslaa ee tikreeta madaxweyne uu ku siixo waxa uu meesha ka saaray sharci muddo dheer Mareykanka soo jiray kaas oo ah qof kasta oo ku dhashay ilmo kasta oo Mareykan ku dhasho in la siinayo dhalasho Mareykan ama Mexico ka yimaado ama Canada ka yimaado ama Soomaaliya ka yimaado مثلا gabadha uurka leh ama hooyada uurka leh marka ay timaado Mareykanka gobol kamid ah ama magaalo kamid ah ay ku dhasho cunuga halkaas ku dhashay xaq wuxuu u lahaa si toos ah in loo siiyo dhalasho Donald Trump wuxuu leeyahay with only country annaga ayaa noqonay dalka kaliya ee sida u dhaqmo oo dhalashada bixi marka ma sameyn karno leeyahay macquul ma inaan sidaa sameynana sax ma holiday loo imanaya qof ba gabadha markay uur yeelato Mareykanka holiday soo aadaysa visa soo qaadanaysa ama tigidhka iska soo bixinaysa daan visa laga rabin Washington ama New York ama Minnesota ku soo dhaxfadhisanaysa Minnesota ku dhashay automatically cunuga dhalasho qaadanay cunuga Mareykanka markuu ku dhasho dhowr bilood tarta xaq waxay u leedahay cunugeeda inay ka warqab sanad iyo muddo markay sii joogtana deganaansho waxbay alifanaysaa wuxuu leeyahay dad aan leenka ku qarabto wadamo badan adduunka sameyn jiray ayaa joojiyay waxa kamid ah Britain Ingiriiska waa la sameyn jiray ka hooyada uur kale markay Ingiriis ku dhashay dhalasho la siin jiray laakiin xilligii dambe ayaa la joojiyay oo waxa loo joojiyay waxa la yiri dad badan oo fursad ka dhigtay ayaa ka faa'iideysanay oo u arkay in maaragtay hadii ay yimaadaan inay ilmahooda u noqon karaan British ama American taasna iyagu arkaan fursad ay maaragtay haday iyagu rabaan dhalashada Mareykanka ama Ingiriiska inay ku noqdaan maaragtay muwaadiniin ay u mari karaan tii waxay keentay baa la leeyahay in Ingiriiska ugu dambeyn ay joojiyaan arrintaas yaa joojiyay marka waxa la joojiyay xiliyadii 1980yadii meelaha ayaa la joojiyay waxaana joojisay Margaret Thatcher oo ahayd xilligaas haweeneyda kaliya ee ra'iisul wasaare noqotay markii dambe Liz Truss ayaa ku soo biirtay inkastoo maalmar yeestay iyada ra'iisul wasaare noqotay Margaret Thatcher waxay joojisay in haweeneynta iska imaado ay dhalasho oo meesha ku dhashay kadibna cilmiyeeda dhalasho la siiyo waxa shardi ah qofka raba in ilmihiisa dhalasho Mareykan uu qaado ama dhalasho Ingiriiska uu qaado sida hadda Trump uu sameeyay in ilmaha intuu dhalan ka hor aabiis ama hooyadiis oo muwaadin yahay mesela hadii aad British tahay hadaad Ingiriiska ku dhasho cunugaada waa British hadaad Afrika ku dhasho cunugaada waa British ina u dalabto bis ka xigtan oo British noqdo laakiin adoo British ahayn hadaa Ingiriiska ku dhasho London ku dhasho ama Birmingham ama Manchester ku dhasho cunugaada British ma qaadanayo Margaret Thatcher Trump wuxuu leeyahay saas camla qofka Mareykanka ayaa cunugiisa u Mareykan noqonaya laakiin adoo Mareykan ahayn ayaa Mareykan ilmo ku dhashay adaab qaxooti ku ah Mareykan ama sharci haysanin cunugaada Mareykan ma noqonayo So today the President signed these two executive orders here relating to birthright citizenship and birth tourism. As the President mentioned, the 14th Amendment was passed exclusively in the aftermath of the Civil War to ensure that the children of slaves would be citizens. It had no other meaning and purpose outside of that. And that's been clear, obviously, since the day that it was passed. You can go back and you can read the congressional debates. This is not something that's even seriously contested by anybody. The President is using his authority as Commander-in-Chief to sign first an executive order using the new ruling the Supreme Court issued to expand the definitions of people who are ineligible for birth. aan ka gudubno Trump hadalkiis waa cad yahay waa aqalka cad arintan Trump la wadaagayo waxa la tilmaamayaa in madaxweyne Trump uu bedelay sharci hore oo Mareykanka la sheegay in loogu talagalay dadka adoonsiga loo keenay ilmahooda adoonsiga dadka lagu keenay marka meesha ku dhalaa ilmahooda in dhalasho la siiyo ujeedadaas uma marka hore sharcigaas loo keenay buu haddana tii ma jirto sidaa darteed madaxweynaha digreeta madaxweyne ayuu wuxuu ku joojiyay in sharcigaasi mar dambe u shaqeeyo barnaamijkii oo aad kala socoteen kow Somali Media maanta oo Jimcaha waa inaga inta tan inta aynu kulmayno barnaamijka mid ka xigo nabadgelyada Ilaahay dushiina ha ahaato